السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay Dr. Nasre Gargaar waxaan ku takhasusay xanuunada ku dhaca dumarka daweyntooda iyo qaliinadaba. waxaan ka howlgalaa Dalmar Specialist Antigen Hospital. daryeelka loo sameynayo gabadha uurka leh marka u naqaano antenatal care ka hore aan uga soo hadalnay muhiimadiisa waxyaabaha la sameynayo marka waxa kamid ah la socosho mar walbeetooda in loo sameeyo oo markay koowaad ay gabadha dhiigii caadada ay weyso ee laga yaabay inay gurigii ku soo baaratay ay marka positive u soo baxday markay timaado isbitaalkii ama goobaha caafimaad waxyaabaha la sameynayo oo mar walba in la sameeyo ay tahay waxa kamid ah in uurkii la confirm gareeyo la xaqiijiyo uurkii inuu jiro iyo in kaleentood sidoo kaleentood xaaladda caafimaad ee hooyada in la fiiriyo cunugana in la fiiriyo koritaankiisa iyo sida ay xaalkiisa yahay waxyaabaha kaleentood oo la sameynayo waxa kamid ah in la fiiriyo hadii ay jirto xaaladaha danger sign-ka loo yaqaan ama xaaladaha khatarta ah hadii uu jiro complication ama dhibaatooyin uurka la xiriiro oo kaleentood in laga control oo laga fiiriyo waxa kale oo la sameeyo waxa kamid ah in mar walbeetood dhiigii laga cabiro oo kaleentood kaadidii la fiiriyo miisaanka inuu kordhayo in kaleentood in la fiiriyo waxa kaleentood oo kamid ah waxyaabaha loo sameynayo in screening la sameeyo dhiigeedii oo kaleentood in la qaado hadii infection iyo waxay jiraan oo kaleentood xanuunada faafo oo kala hadii ay qabto kaleentood hooyadii in laga baaro nooca dhiigeeda inuu yahay oo kaleentood in la ogsoonaado maxaa yeelay muhiim u tahay blood groupka gabadha in la ogsoonaado aad iyo aad ay muhiim ugu tahay maxaa yeelay hooyooyinka qaar ee negative-ka ah waxay u baahanayaan in la siiyo marka dawooyinkii oo looga hortagayo kaleentood in hooyada mustaqbalka dambeetood ilmaheeda ay ka saameynayo uurkan marka dawadii ku habbooneed oo kale ayadana in la siiyo hooyadaaseeto si uusan saameyn dambe ugu yeelanin talaal gabadhii ay heshaa kamid waxyaabaha loo sameeyo hadii markaas daweyn loo baahan yahay oo kaleentood in la siiyo waxyaabaha kale oo loo sameynayo waxaa kamid anemiyada ama dhiig la'aanta la socoto uurka in laga screen gareeyo oo la fiiriyo xaaladeeda dhiiggeeda si joogto ah loola socdaa kamid waxa kale oo kamid waxyaabaha loo sameynayo gabadha uurka leh in ultrasound-kii oo kaleentood ama la saaro la fiiriyo cunuga xaaladiisa caafimaad waqtiga bilahiisa inta ay marayaan oo kaleentood cunugii maxaa la yiraahdaa hadii uu dadban yahay oo kaleentood hadii uu position-ka u jiifo oo kale cunugii in la fiiriyo hadii wax abnormality ay jiraan oo kaleentood tusaale ahaan hadii neural tube defects oo kaleentood ilmaha dhabarka ka furan oo kale spina bifida oo kale leh hadii cunugii madaxa kaga jiraan biyo oo kale hadii xaalad caafimaad cunuga quseeyo oo kale jirtana marka in la ogaado kamid waxyaabaha ultrasound-ka marka la fiirinayo waxyaabaha kale oo loo sameeyo hooyada waxay tahay nutrition-keeda ama nafaqadii iyo qaabkii nolosheeda oo kaleentood in lagala taliyo ee cunto caafimaad leh oo isku dheelitiran cunto oo kaleentood in ay socod ama jimicsi oo kaleentood marka aan xaaladeeda caafimaad dhibaato ku keenaynin iyo uurkan aan saameyn ku lahayn oo kaleentood in loo sameeyo kamid waxyaabaha la sameynayo waxyaabaha kaleentood oo lagala talinayo waxa kamid ah hooyadii lifestyle-keeda hab nololeedka oo kaleentood inay hooyada marka jimicsiye aanan saameyn ku yeelanaynin ayada iyo cunugeeda oo kaleentood inay sameyso markaasna ay awoodo aysan ku dareemeynin raaxo darro waxyaabaha kale oo lagala talinayo waxa kamid ah qataraha oo sigaarka iyo maxaa la yiraahdaa tubaakada ay ku keeni karaan ayada iyo ilmaha yarka caloosha ku jiro kamid tahay cunugii inuu korinshihiisii uu kori waayo oo kaleentood marka environment-ga ama lamaanaha gabadha hadii uu qof smoker oo sigaar yacabi uu yahay oo kale ama dadka ay la nooshahay biicada ay ku nooshahay oo dhan meel sigaarka lagu cabayo oo kale ay tahay inay ka fogaato inay u sheegto oo kaleentood inaanan agteeda sigaar lagu cabin oo kaleentood maadaama saameyn caafimaad ay u geysanayso waxyaabaha kale oo kamid ah antenatal care-ka ama daryeelka loo sameeyo hooyada uurka leh waxa kamid ah in la fiiriyo dhalmadeeda qaabka ay noqonayso goobtii ay ku dhalin lahayd oo kaleentood xaalad emergency oo kale hadii ay timaado iyo sidii loo xalin lahaa oo kaleentood in loo sii sharaxo hooyada waxyaabaha kale oo loo sameeyo waxa kamid ah in la taageero ama support looga sameeyo emotionally maskaxiyan iyo jisad ahaanba hadii cunuga uu soo dhasho oo kale nuujintii u sameyn lahayd oo kale hooyadii in la baro waxyaabaha kaleentood oo loo sameynayo waxa kamid ah antenatal care-ka hooyada in la baro calaamadaha loo yaqaan danger sign-ka ay kamid tahay hadii gabadha isku aragto dhiig bax siyaado ah hadii ay isku aragto xanuun dhanka hoose ee caloosha ka qabanayo hadii ay isku aragto madax xanuun siyaado ah hadii isku aragto miisaankii oo aad u kordhayo oo kaleentood sidoo kale hadii isku aragto aragtidii oo isbedelayso oo kale waxyaabahaas oo dhan cunugii oo kaleentood dhaqdhaqaaqiisa hadii ay
goysa ama hoos u dhac uu ku yimaado oo kale hadday aragto biyo soo daadanayo oo kale intooda amniotic fluidka ama cunuga biyo uu ku dabaalanayo rupture inay noqoto oo kale soo daadanayo aragto waxyaabahaas oo dhan haddii aragto markiiba inay goobaha caafimaadka isbitaalkii ay timaaday dhakhtarkii la soo xiriirtaa kamid waxyaabaha loo tababaraya ama hooyada la barayo ay kamid tahay oo lagu educate gareeyo sidoo kale intood waxyaabaha loo sameynaya antenatal care ama daryeelka hooyada caafimaadka waxaa kamid ah waxyaabahaas oo dhan inay ogsoon tahay safarkeeda uurka soo bilowday ilaa iyo dhalmadeeda inay concept ka haysato waxyaabaha isbuuc kasteentood isbedelada imaanayo oo dhan inay la socoto WHO waxay ku talisaa in hooyada la socoshada ugu celceliska in 8 mar oo kaleentood intay uurka leedahay oo kaleentood ay hesho antenatal care ay booqasho fiisadka dhakhtarka ay booqanayso in ilaa iyo waxaa la yiraahdaa 8 mar oo kaleentood inay booqasho hooyada isbitaalka ay tagto ama goobaha caafimaadka ay tagto dhakhtarka ay la kulanto lagu waaniyaa marka la socoshada loo sameynayo iyo daryeelka la siinayo gabadha caafimaad maxaa la yiraahdaa uurka leh waxay tahay in la helo hooyo caafimaad qabta iyo ilmo caafimaad qaba safe motherhood waa muhiimada ugu weyn marka gabar kasta uur leh waxaan kula talinayaa kuna baraarujinayaa markay uurkii aragtaba inay tagto goobaha caafimaadka isbitaalka oo kale inay tagto xaaladeeda in lala socdo inaysan miskareynin ama markasta oo ballantii dhakhtarka u dhigo oo kalentooda antenatal joogto la socosho joogto oo kalentooda inay gabar walba tood samayso talada dhakhtarka ay qaadato calaamadaha oo danger sign-ka hadda ka soo hadalno khatarta oo kale intood xataa inay tiraahdo maxaa kamid ah haddaan isku arkay inaan isbitaalkii u soo ordo dhakhtar kastana mas'uuliyadiisa waayba hooyadu u sameynaya antenatal care in uu baro oo maxaa la yiraahdaa u train gareeyo calaamadaha danger sign-ka aad iyo aad u mahadsantihiin anaga ka dhaqta isbitaal ahaan iyo ka dhakhtar ahaanba Dalmar Specialist and Teaching Hospital waxaan u fidinaa hooyo kasta oo uur leh antenatal care isbitaalkeena wuxuu leeyahay antenatal package ugu talagalnay hooyadii inaan record gareyno xaaladeedii caafimaad oo dhan ayna naga helaysa adeeg kasteentood ee loogu talagalay hadday ahaan lahayd baaritaanadii hadday ahaan lahayd daweyntii hadday ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa talaaladii hooyada loogu talagalay ayna leedahay buug aan u sameynay buugaas oo xaaladda caafimaad ilaa iyo dhalmada cunuga ay kula soconayso daryeelkaas ee taa u sameynayno hooyooyinka uurka leh waa naga helaysaan si hagaagsan waa idinkugu adeegaynaa insha Allah tacaala gabar walba oo uur leh waxaan kula talinayaa inay maxaa la yiraahdaa hesho adeegga caafimaad ee aan bixinayno ee antenatal package-ka ah aad iyo aad u mahadsan Dalmar Specialist and Teaching Hospital higsigeenu waa caafimaadkaaga